ترى مجال حبس تهريب ولا بقري ومعنى جارك لو حبسي وين وقرن إنه هو حبسي تهريب نوع تهريب حبسي جاية بوحدة حبسي جاية كلا مي حبسي جاية كلا هو يذاك الشاب أنت تهريب حبسي ما قالوا كون دول كانوا نقانا بوحدة ده ترى ولا سكسي داية كل باني يجرى كل باني هو يضو أي si rabbaani uu ka shubaa markuu ilmaheedu ka taariyo xabsi bay gashaa ma socon karto awood ma leh ma seexan karto wax niyada wax ma cuni karto xabsi waxay gashaa min Allaahi ah sababtuna waxay tahay wiilkeedii ama gabadheedii baa ka maqan xabsi tahriib macnaheedu wakaa waxay ka sheekeynaysaa wiil aanu saaxiib ahayn وهويدي كل جيسي رشة ويلك تاريخ تاريخ قصة نقدر حيسي صاحبتي نمدي وسيدة يا حين ما هاي مدار عاو كل يدين كشوفين كرم أفر هبين أنا ويلسي حنجري ويدي مسوي يجري ما كان دوننا على لسي حنجري قلبي طير بي حاين مالك هيدا مو دمعين وتهريبه هويدي دير بيه markuu damcay inuu tahriibo hooyadii uma sheegin anigana ima sheegin wala wada qof ay ugu dhawaabaan ahayn aabihii uu dhintay Allah naxariistaan uu tagay meesha boorame la yiraahdo Ethiopia waa loo kala lugeeyaa uu tagay gawaarida shaadku iska raacay uu baxay wadadii hore uu dhaafay adigu meel la yiraahdo xuduudda Ethiopia iyo Suudaan u dhaxaysa oo magac yar oo xun leh maxay ahayd ayuu hooyadii kala soo hadlay saddex ishu sii maqayay marka ilaahay amarkii maalinta aniga intuu iga saddexdii ishu iga maqnaa inuu hooyadii ku mashquulsan yahay oo haystay saddexdii ishu maqnaana inuu hooyadii aniga ila joogay bay haysatay inta halkaas ka timi oo loo tabi waayay وسك تجي هالكاس وكلاس وحلي إلى هي مركمان ما محكم إذا عني وكوبات كإيمي أو ماشي هو يدي حواش كإيمي شرتي مال إيرو شرت مريا يعني قيلا مقلي ويباي ويحاول كي شو عدكم واني كرنيا هرانا صيرت طلاب صدي وعدك ويسود وادي آخركي waxaan ogaaday hooyadii aan aqaanay inay qaylinayso marka waa lagu booqsanaa waan dareemay dib xaafadda ka timi inay tahay gaar ahaan wiilkeeda ka timi inay tahay way malacag baan hayaa xagaan uga keenaa miyaan soo xadaa xaguu aaday wax kastuu haystay erey noocaasa hooyada afka ka soo baxaya maansadan dhibaatadii noocaas ahayd baan ka sameeyay maalinkii waan awoodi kar waay hooyada inaan la hadlo sababtoo wiilkeedii baa ka maqan ana xaragoonaya ma hor istaagi karo waana lagu buuqsanaa laba cisho dambe bay maskaxdayda hadalladii hooyadaasi ay ka dhex bixi kar waayeen si kastaan waan seexday xataa cunug waxaan cunay kiniinkan hurdada leeyahay ee yaryar aan soo kacaa hooyadii baa iga dhex qaylinaysa maansadan baan marka sameeyay maansadan waa hooyadii oo hadlaysa iyada lafteedii baa hadlaysa hadalladeedii maalinkii aan maqlayay uun baan sugaan uga dhigay waxay tiri dhunyaal buu ku bilaabmaya ereyga dhunyaal macnihiisu waxa weeyaan tahriib af carabi dhunyaal soomaalidii hore sida dadku waaweyn say sheegeen hebel uu dhunyaalay waxay ka macna ahayd hebel wuxuu tagay meel aan deegaankiisa ahayn marka ereygaas ugu dhow wax loo fasiran karo baan filayaa kulli barsoorkiina waa joogaa dad badan oo iga aqoon fiican waa joogaa reer mudugna waxa la dhaqanka iyo afka oo meesha ugu fiican Soomaaliya laga hadlo marka xogaa waxa laga yaabaa in xagga iga hadaan galo halkii iga raalahaan marka waxay tiri xumaa dhuyaal xumaa waayuhu xagal gaabana xarfaha sanaduhu yaraa xilkiisa qofaad sidood xumaanta ka dhowr lahayd xajiinta ka waab lahayd markuu ku xiqdiyo xumaa xaqay hooyadu lahayd
xisaabtay kaa mudnayd qof aan garanayn xumaa markuu curadkii xulnaa xurmayn jirtay eed jeclayd tahriibta xigsado xumaa xabuubaan iibiyaa xawaashkana waan gadaa cadceeddaan xiiqayaa xabeebe afkii dartaa xubnihii socod way gabeen xabsay ku jirtaa naftani haddana xilkii hooyanimo xasanoo weli waan sidaa magafe adiga igu xidhay magafe adiga igu xidhay xabsiga adigay dhex dhigay xabadda adiga igu ganay hurdada adiga iga xaday adaa fikirii xirxidhay xalaal baan kuu dhalay xumidaa wiilkaygiiow ma hayo xoolo iyo lacag xamaal ma aqaan anigu xabaasha haddaad gashana xaq weeyaan geeriduye miyaan kuu soo xadaa macnaha haddaad dhiman lahayd waan kaa samri lahaa laakiin wiilkaagii oo ooyiyey kama samri kartid wiilkaan ku xasidi jiray hurdada ku xurmayn jiraa xujiyo fikir igu dilo taladu way iga xuntee ma xoolaan soo dhacaa oo xaaraan baan cunaa sidaan yeelaa xigtoy xaggaan aadaa hadeer ahay dhuunyaal xumaa xariir baadii ahayd nuurkii xubnahaad ahayd hantiyo xoolaad ahayd xiddiga bulshadaad ahayd xadhigga nacabkaad ahayd xulkii ubadkaad ahayd indhaha kuu xiisi jiray xulbaad hooye ii ahayd maxaad u xigsatay tahriib maxaa dhibta kuu xadiday xalaal baan kuu dhalay xumida wiilkaygii maansada xabsi tahriibna intaan kaga gudubno